waxaa muddooyinkan dambe isu soo taraya dhacdooyinka naxdinta leh ee kufsiga iyo dilka ee ka dhaca maamulada kala duwan ee Soomaalida kuna sii badan maamulka Puntland iyo deegaanada maamulkaasi uu xukumo. Arrinkaas oo maanta u dambeysay uu ka dhacay dil iyo kufsi caasimada Puntland ee magaalada Garowe. Waxa aynu ka wareysanaynaa wariyaheena Maxamed Faarax Toolman. kusoo dhawaalo radio Maxamed. waa dhawaa Siciid oo maasanta maxamed maxaad nooga sheegi kartaa qisadan naxdinta leh gabadha ku dhacday ee maanta ku geeriyootay hospitaalka Garowe? Siciidow galabta markay saacadu ahayd 9 iyo bar xilligii salaada casar ee Soomaaliya salaada la tukanayay magaalada Garowe waxa ka dhacday arrin aad u fool xun oo dadka murugo ugu beertay gabar uur loo xaamilo ah oo magaalada Garowe xaafado kamid ah deganeyd ayaa gurigeeda loogu soo dhacay oo haddana inta la kufsaday la dilay. markaa hospitaalka ayay ku geeriyootay mise xaafadeeda? gabadha guriga ay joogtay baa darbiga looga soo dhacay kadibna madaxa waxa loo galiyay bac waa la kufsaday. gabadhu uur bay lahayd xaamilada 9 bilood kadib cidii kufsatay meesha waa ka cararday. gabadhu naf yar ku jirto baa lagu soo gaaray isbitaalka la geeyay isbitaalkay ku geeriyootay. hadda weli wax cid raadraaca ama cid loo hayaa ma jirtaa? cid loo hayaa ma jirto oo ilaa hadda lama ammaanka aanu la xiriirnay waxay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan. cid ay u hayaana ma jirto. gabadhiina sidaas ay ku geeriyootay. ninkan gabadha kufsaday sida la sheegay ama raadadkii la helay darbiga guriga meel kamid uu ka soo dhacay. sida daraadeedna gabadhu qolkii ay deganeyd oo markaa kaligeed guriga ay deganeyd uu ugu soo dhacay. bacmadow buu madaxa u galiyay iyo maryo kale madaxa ugu duuduubay. danihii uu lahaa markuu ka gaarayna uu isaga baxay meesha. marka wiil yar oo ay dhashay baa xaafada ka cararay markuu arrinta arkay ilmo yar ahaa. isaga xaafadaha inta uu tagay wuxuu yiri hooyo waa la dilay iyo wax aynkaas oo yiri. sida daraadeed ba markii dambe lagu ogaaday. maxamedow dhacdadani maaha tii koobaad ee ka dhacda geyiga Soomaaliyeed muddooyinkii u dambeysay siibatun maamulka Puntland. arrinkii ayaa dhawaan aynu xasuusanaa ka dhacay gaalkacayo gabadhii yariis la oran jiray Caasho. gabadha maxaa ugu dambeeyay warkeedii? halkee ugu dambeeyay kiiskeedii ee hadda uu maraya? Siciidow arrintaas waxay ahayd arrin Soomaali oo dhan meel kasta ay joogto saameysay. gabar yar oo 13 jir ah bila ka hor waxaa lagu kufsaday magaalada Gaalkacyo. Caasho Ilaahay ha u naxariisto 7 nin baa kufsatay sida la sheegay. 7 ninba gacanta lagu soo dhigay waa la xiray. muddo hadday xirnaayeen waxaa la sii daayay 7 nin 5 kamid ah halka 2 xabsiga lagu reebay oo la yiri labadii nin oo gacanta lahayd oo gabadha dishay weeye. 5tii kale oo wax ka kufsatayna ayagana waa la sii daayay. 2 nin oo dilka geystay oo gabadha qaarajiyay baa xabsiga lagu reebay. kolley cadaaladaas iyo sharcigaas meesha uu ka shaqeeyo anagu ma sheegi karno laakiin waa sida dhacday oo arrin dhacday in 5 nin la sii daayay 2 nin ay xiran yihiin. 2 nin oo xiran la yiri waa 2 nin oo dilka gabadha u geysatay. 5 kale oo gabadha la kufsatay 2 nin oo xabsiga lagu reebayna la sii daayay. arrinteedu halkaas ay hadda maraysaa. 2 nin baana xabsiga imaka ku jira 5na waa la sii daayay. 2 nin ee xiran maxaa hadda loo hayaa? ma maxkamad baa la soo taagayaa mise iyaguna dacwad la sii deyn ah baa u socota? halkee iyaga sidee dhankee u socdaa? walahi inkastoo aan ilaahay haddeer la sii deynayay in kale aan wax xogo badan aan ka hayn inay xiran yihiin oo cadaalad ay sugayaan si loo maxkamadeeyo kiiska ay leeyihiin loogu qaado baanu hadda haynaa. laakiin uma badna haddii 5 nin oo kale oo falka la geysatay la sii daayay in 2 nin ay xabsiga ku sii jirayaan. sida lagu yaqaan gobolkan Puntland inta badan kufsiyo fool xun oo dhibaato badan oo aad u qalafsan baa ka dhaca.
isla markaana inta odayaal isaga yimaadaan oo ka shiraan baa dadkii dambiga geystay la sii daaya. waxaan xasuusanaa 2016 magaalada Goldogob ee ka tirsan gobolka Mudug waxaa jirtay rag ilaa 5 iyo 6 gaaraya oo gabar kufsaday oo waliba baraha bulshada ku faafiyay sawirro intay ka qaadeen oo la sii daayay oo aan cadaalad la marsin. marka tanuna caashana waxaan u malaynaynaa inay mari doonto wadadii gabdhii ka horreeyay mareen, waayo haddii kii wax kufsadaba cadaaladda la marin lahaa waxaa imaan lahayd in aan cidi ku degdegin gabdhaha kufsigooda. waxaad ujeedaa kuwa uur leh in maanta u dambeysay Garowe duhurkii lagu kufsanayo lagu dilayo. marka arrin iska caadiya ka noqotay oo iska caadiya goboladan Puntland waxay ka noqotay arrin aan cid badan isweydiinayn. wax iska caadiya in gabdhaha inta la kufsado haddana la dilo la iskana dhaqaaqo. aad iyo aad baanu maxamedow kaaga mahad celinaynaa warbixinta aad naga siisay dhacdooyinka naxdinta leh ee ka dhacaya maamulada kala duwan ee Soomaalida. aad iyo aad baad mahadsantahay Siciid. dhegeysta si aad ula socotid dhacdooyinka ka dhacaya geeyada kala duwan ee Soomaalida, fadlan waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe-ka iyo kamballeedhka labadaba taabatid si aad uga qayb qaadatid horumarka alool.com iyo alool radio. aad iyo aad baanu dhammaantiinba nabadqab iyo caafimaad idinkaga tegaynaa.